بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa anigoo ah suldaan guri xaaj faarax inaan halkan baaq uga diro dhammaan shacabka reer Jubbaland gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Gedo. Waxaan rabaa shacabka reer Jubbaland inay iskaashadaan gacmaha isqabsadaan nabadda iyo horumarkana iska kaashadaan wax kastoo maartay dhibaato ku keeni karana iska kaashadaan ay ka hortagaan. waxaan ogsoonahay maamulka Axmed Madoobe dhibaato badan inuu ka wado gobolada Jubbooyinka oo hadda uu doonayo inuu maartay dadkii qabiil iyo isugu horkeeno si marka ay maartay waxa uu ku fakarayo iyo fakarkiisu aysan u hirgelinin. waxaa la rabaa shacabku ayaga ayaa rabaa inay gacantooda kula yimaadaan nabadda, ayaga ayaa rabaa inay ka hortagaan si wada jira uga hortagaan guud ahaan shacabka reer Jubbaland. waayo ninkan waa nin qabqablo dagaala weye, waa nin maxaan ku leeyahay argagixiso waa nin doonaya inuu dadka shacabka labo isugu dilo oo beelbeel madaxa isugu gasho si asaga fursadiisa uga dhex helo. taasna waa inay gartaan odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, waxgaradka, culimada, gabdhaha, shacabka reer Jubbaland guud ahaan waa inay maartay taas iska kaashadaan si aysan u dhicinin, iskana kaashadaan si ay nabadda ay haystaan u xoojin lahaayeen, iskana kaashadaan in colaad la dhex dhigin oo maartay wax dhibaato ah ama maartay dhibaato u keeni kara inaan la maartay aan la dhex dhigin. waxaa ka horaa shacabku inay iska kaashadaan, inay iska dulqaadaan dhibaatada uu ku hayo Axmed Madoobe. waayo Axmed wuxuu doonayaa inuu dadkaas labo iyo beelo isugu dilo siyaasay amridada ay u noqoto. intaas waa guud ahaan shacabka reer Jubbaland gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Gedo. waxaan u baaqayaa baryahan dhibaato badan waxay ka jirtay degmooyinka Garbaharey, Baardheere iyo Buurgabo iyo Ceelwaaq, kuwaas oo Axmed hadda uu taageergaraynayo inuu maartay dhibaato ka alooso oo dadka labo iyo beelo isugu dilo. dadka shacabkana si wanaagsan bay arrintaas uga hor yimaadeen, waana ka maartay si fiican bay maartay arrintaas ugu baraarugsan yihiin iyo waxa uu doonayo iyo kuwa dabadhilifka uu usoo dirayo intaba ujeedka ay leeyihiin aad bay u garowsan yihiin. waxaana kuga talinayaa inta hadda maaragtay guulaha ay ka gaareen inay sii adkaystaan, banaanbaxooda iyo fakarkoodana ay cabiraan, gacmahana ay iska qabsadaan in dhibaatada maartay dhexdooda la dhex dhigin, ujeedadii ay lahaayeen iyo hadafkoodina aan laga weecin. kuwa adinka idinka dhashay oo maartay dabadhilifka oo jooga gobolka ama degmooyinka Baardheere ama Garbahareyba jooga inaad iska qabataan, sababtoo waxay u shaqaynayaan Axmed Madoobe, waxayna doonayaan dadka inay labo iyo shacab isugu dilaan, waxay doonayaan maaragtay inay maaragtay Axmed idin dhex keenaan nin waqtigiisii dhammaaday oo maaragtay irid walba ka soo oodantay meel maanta waadi karan aysan jirinin. dadka deegaanka goboladaas gobolka Gedo degan iska hor keeno ayuu aad maaragtay soo taxallujinayaa. Axmed waad ogtihiin oo dowladda federaalka ina xiriirka u jaray adinka reer Gadoodana horeyna waxba idinkuguma taraynin, horeyna waxaa idhaaf 7 sano oo dalkaas gobolkan xukumay waxba idinkugumuusan qabanin. maanta oo waqtigiisa dhammaadayna wax uu idin qabanaya ma jirto. maclumaa marka intaasba ay jirto wuxuu hadda idin qabanaya aysan jirinin. go-aanka aad qaateen oo ah nooma imaanaysid, go-aankiinaas ku adkaysta, idinma imaan karo beenti weeye. kuwa u sacabtuunayo oo gobolka jooga oo le waa keenaynaana been bay sheegayaan. ka hortaga si wada jir uga hortaga, iska qabta, adinka yaa laidinkala waxaysanin, yaa shacabka dadka walaalo wada dhashay laiska horkeenin, hal aragti ka lahaada, hal maaragtay mowqifna ka qaata, saad uga qaata ku adkaysta.